ugu mahadnaqaya ilaahay mar labaad ka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo runtii markii afraad dekreeta madaxweynaha ugu magacaabay anagu runtii waxaan nahay gacan yarayaasha madaxweynaha marka meel kasta oo naloo diray inaan ka shaqeyno waan ka shaqeynaa diyaarna waanu nahay waan ka soo dhalaalaynaa shakhsiyan runtii wasaaradda arrimaha dibadda hore baan uga shaqeeyay waxaan ahaa ambassador at large imikana waxaan insha Allah rajeynayaa inaan si weyn muxuu ahaayay hawsha u gudan doono waxaan runtii rajeynayaa saaxiibadayda wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya ugu horeeyaan dinjiriyaasheena jooga wadamada kala duwan iyo muxuu ahaayay mas'uuliyiinta wasiirka wasaaradda wasiir dawlaha dhammaan oo aan wada garanayno soo wada shaqeynay inaan si ballaaran wada shaqeyn doono qarankana muxuu ahaayay himilada uu higsanayo yoolka uu higsanayo ah in qaranka Soomaaliland noqdo qaran madax bannaan la aqoonsan yahay horumarsan in yoolkaas aan ka wada shaqeyn doono oo aan noqon doono gacan yarayaasha madaxweynaha si fiican insha Allah uga soo dhalaali doono waxa kale oo jecelahay runtii halkan ka faa'iideysto inaan u mahadnaqo dhammaan shaqaaleynaha wasaaradda qorsheynta qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka muxuu ahaay oo runtii aan si fiican soo wada shaqeynay waxa ay runtii ku buuxdaa sanad gaw ah bay tahay muddada aan wasaaradda qorsheynta joogay ilaahay ma hadii wax badan baa noo hirgalay waxaa noo dhammaystirmay qorshihii qaranka NDP2 oo dhawaan madaxweynuhu saxiix doono oo si fiican ugu dhammaystirmay 9 bilooda ugu dambeeyay habeen iyo maalin baan ka shaqeynay waxa kale oo aan runtii halkan ka qirayaa una mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Qabya Tire oo runtii muddada uu xilka joogay wasaaradda wax badan ka qabtay nala dhiirigeliyay shaqaalaha nala muxuu ahaa runtii socodsiiyay runtii saad ka warqabtaan dawladnimadu waxa weeyaan waa meerto maalinba nin meel baa jooga marka ugu horeysa waan hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo runtii waa mas'uuliyadda qaranku isaga saaran tahay hawlaha qarankana isaga hadba meeshii baahidu taala ama hadba meeshii culays saaran yahay isaga yaqaana iyo ciduu u magacaabayo markii aan isla aragnay waxaan gartay inay maanta loo baahan yahay inaan ka hawlgalo wasaaradda maaliyadda saas awgeed buu madaxweynuhu ugu magacaabay waa ku mahadsan yahay aniguna waan kaga aqbalay waan ku faraxsanahay inaan noqdo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda